Dr. Ali Khaliif Galayd hogaamiyaha Khaatumo oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Hargeysa ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay heshiiskii Khaatumo iyo Soomaaliland u dhaxeeyay ee ay wada saxiixeen isaga iyo madaxweynihii hore Axmed Maxamed Silaanyo waxaana uu sheegay hadii la hirgeliyo heshiiskaasi inuu rumayn karo himilada Soomaaliland ay raadinaysay 26 sanadood. Arinta ugu weyn ee la qabtay waa arinta nabadda. Waxa laga yaabaa dadku inay saa u wada dhaadin laakiin aagagaas Sooliya Sanaag iyo Cayn waxa weyn bay arinta nabaddaas ugu fadhidaa waxaan u maleynayaa hadii halkaan nabadi ka jirto waxay u tartamayeen Soomaaliland waxay ka dhimaysaa ma ay jirto waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo waa run aniga saaxiibkay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo heshiiska Caynaba waa wada saxeexnay waa muran ma doonto laakiin wuxuu u baahan yahay heshiiskaasu in la fuliyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo Faysal Cali Waraabe intii aan doorashaduba dhicin yaanu Caynaba isku araragnay ballankaasuna waa naga dhaxeeyay inay kii soo baxaaba oo heshiiska u dagaalgali doono sidii lagu fuliyo anigu waxaan qabaa hawshaas inay muhiim u tahay Somaliland annagu taayada qiraal baanu balanahay laakiin meeshan taariikh horaad taala afraad ama kooxo aagaga ka socda meeshan iman jiray doorkoodii way cayaareen laakiin 25 sano 26 sano ka bacdi meeshii aynu rabnay ma ayan gaadhin heshiiskaas Khaatumo iyo Somaliland waa mid meesha ina gaarsiin kara dadka majority-giisu tirada ugu badan ee aaga Sooliya Sanaag iyo Cayn ku nool aad bay u dhowraysaa hawshan inay isku duba dhacdo marna dadku ay salka dhulka dhigaan waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo relative deprivation dad dhulkan aynu ku noolahay dhul aynu meeshaynu jecel lahay inay dadkeenu gaadhaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo horumar lama gaadhin. Dr. Ali Khaliif ayaa hadalkaasi ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay ku sugnaayeen siyaasiyiin badan wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo madasho ku sugnaa ayaa ku raacay hadalka Dr. Ali Khaliif uu sheegay waxaana intaasi uu ku daray in madaxweynaha Soomaaliland uu ku kalsoon yahay arintaasi inuu hirgelin doono. Dr. Ali Khaliifna si weyn baan u bogaadinayaa hadalladu halka kala ahaana waa hadallo sax ah waxaan rajaynayaa arrimahaasi waxay ahaa arrimahan ka wada shaqeynay qarankan in la mideeyo wadajirkiisa laga shaqeeyo waa waajib madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxaan ku kalsoonahay inuu halka ka wadi doono waa hogaamiye bisil oo garan karaya muhiimadda ay xambaarsan tahay